wabarakaatu dhammaantiin. madaxda shirkadaha oilka oo maanta halkan la joogta martiicaan ee halka ku shaqul leh oo ugu horeeyo Keith Hill madaxweynaha shirkadda African Oil caanka Peterland oo isaguna madaxa shirkadda Range Resources muddo halkan ku hawlanay David Grillman oo Camex isaguna madaxda ku hadlay halka joogay madaxda kale oo kuwa riiga madaxda dowladda madaxweynihii hore oo dowladda Puntland Maxamuud Xirsi Maxamuud Muuse Xirsi ismada ganacsatada culimaadudiinka waqti sharafta dhammaantiinba waynu salaamaya. marka ugu horeeya waxaan jeclahay inaan mahad ballaaran u soo celiyo intii gacan nagu siisay oo ku dabaashay in maanta hawsha halkan aynoo nimi oo ah waxaa loo yaqaan start ceremony ama xafladda maanta riiggu dhulka ku dhufanayo riigin lagu dhufanayo batroolka qodayay halkan lagu dhufanayo aynu ku xusayno intiinu halkan timi maanta dhan inaan mahadinoo celiyo. mahadda ugu weyn ilaahay ka sokow waxaan u celinayaa ciidamada qalabka sida oo ammaanka sugay oo waa halkan ilaa magaalada Boosaaso geed iyo nin taagnaa haddana qoraxdaa taagan haddana diyaar u ah naftooda u huray indhabanu ku dhimatay la ku dhaawacantay inay ammaanka sugaan insha allah waa xadiisana dise ka helayaan aakhirana waa helayaan haddii kan abaan dib waa helayaan markii la soo saaro batroolka. His Excellency, the President of Puntland starts off by sending greetings to the delegations from Africa Oil led by CEO President Mr. Keith Hill and the delegation from Range Resources led by Mr. Pierre Lando. The traditional elders, the Isms of Puntland, the business community, the religious elders and the religious scholars, the independent media and the ladies, the guests of honor. The President sends his greetings for today, for attending this very important event in the history of Puntland as well as Somalia, and for participating at the spreading ceremony to mark the day when the drilling operations start here in Puntland, protecting our state and our people. Today marks a historic day, as the President stated before, marking the day when drilling operations start here in Puntland. The President says for over 50 years, the people of Somalia, particularly this region, have been a theme of oil drilling operations. It has happened in the past where oil companies came to this region, particularly of Somalia, and perhaps found things and did not complete the exploration activities, with some saying, well, maybe in the 21st century they will begin drilling, and the President wants to say that the 21st century is now, and we are here today. The financial capability or other requirements to undertake such a massive project. It is an honor that companies have risked their investments
to allow for today, and the President thanks the companies who have done so. arrintaas marka waxaan mahad weyn uga celinayaa dadkii hantidaas lahaa iyo dadkii halabuurka lahaa oo haddaaya halkan ninka halkan laga magacaabay Peterland ugu horreeyey inay geesinimo u heleen inay hantidooda halkaas miday dadka soo urushaan iyo miday leeyihiin bageliyaan. The President wants to thank the pioneers who had the creativity to begin this project, beginning with Mr. Peter Landau, who showed courage when he bought his company and his investment, both private and... This project has taken a long time. As stated before, it started. There's been many changes going towards the positive direction, and that's why, after being on the positive track for so long, we are here today. As the President stated before, this project requires massive funding and technical expertise and people, and so if the companies have brought what was necessary to get to today and to begin the drilling operations, what is required of the people and the government of Puntland is to ensure security, to ensure brotherly cooperation between the companies, among the people and the government, and to have patience, as mentioned earlier in the speeches by the company leaders. And the President says he wants to assure the companies and the investors that all the work that the government has done is very evident, and whatever is missing will be seen in the coming days and years, and the government remains committed to security and to the success of this project. weliba qaas ahaan kuwa baalaha waxaa ka soo baxaa baroolkaas oo kale leh wax loo dhisa xoolaha mashaariica wadooyinka iyo aeroboorro ay waqooyitan Soomaaliya oo Puntland ay hore nasiib ugu helin aanu ka barino hase yeeshee maanta haddii ilaahay ka keeno ceelka ugu horeeya oo la yidhaahdo Shabeelle kow waxaa loogu magacdaray ninkii baalkii harga wanaagsanaayo Shabeelka la oran jiray Shabeelle kow baa la yidhaahdaa Shabeelle wana 3 kilomitir buu noo jiraa oo kala foga dabadeedna Liwaax kow iyo Liwaax tuuba waa laga bari doonaa marka waxay la tahay inuu labadooda baryamoyo haddii meesha khayr ka soo baxo cidda ma baryamayno waxayna u baahannahay. His Excellency said, for the last 3 years during our administration, we have sent requests to foreign countries and brotherly nations of the world, particularly countries with oil wealth, to assist us here in Puntland, which is a region that has been neglected for decades by Somalia's governments, which lacks proper roads, proper infrastructure such as roads, airports, and other necessary public facilities. And His Excellency wants to tell the people, well, if this well, which is entitled Shabeelle 1, succeeds in producing oil, then he wants to tell the people that Puntland will no longer be requesting help from anyone. midda kale waxaan jeclahay maanta halkan inaan dadka ka xusuusiyo waxa weeye anagu haddaanu nahay dadka bakhayrka ama waxa ay isleeyihiin dalkiina waa laga helayaa la carara waxaan odhan lahay Soomaaliya waa ka go'nay waxa weeye xilliga laga waabto mar hore aanu yeelno cid laga wataagnin ma jirin
laakiin waxaanu leenahay wuxuu halkaa laga helo ina ku qabi maayo markii Soomaali xisaabtanto oo wax qaybsato oo dastuur yeelato kala haga wixii ay Puntland qaybta kheyraadkeeda ay ka leedahay ku cadaan doonaan wixii meelo kale iyo dowlad dhexe laga siin doonana waa la gaari doonaa inagu sooran haddii ay wax ka soo baxaan meeshaan waad ku horaysaan Soomaali way wanaagi doontaa haddii aan laydin. His Excellency says Puntland, if Puntland was, the people of Puntland were greedy, they have their own government, they would have declared independence a long time ago. However, that is not given accountability, a new agreed upon federal constitution that divides properly authority and power between the federal government and the state government. And the president says any person who thinks that if Puntland produces oil or succeeds with this project, that other Somalis will not get their share, they are wrong. Puntland is willing to share with Somalis equitably what belongs to the rest of Somalis. sida hadda weli sheegay madaxweynaha shirkadda Africa Oil kiifyo muddo qaadanaysaa in wixii la soo saaro markii 60 beri ama 90 beri la ogaado roolka halkaa ku jira inuu shaqo galo muddo qaadanaysaa maaha inaynu sida dadka qaarkood malayn karaan in beri markii aan soo saaro jiirigaanahan ku dhaafano soo qaadanayno laakiin muddo qaadanaysaa hawl badan baa ka sokaysa laakiin mar haddii meesha wax laga helo shaqadaa furmaysa hawl mashaariic badan baa ka furmaya kamaryaal kaloo badan baa qayb ka qaadan doona shaqayn doona waxa ugu horreeya ka hirgalaa wuxuu noqon doonaa in shaqadu ay dadkan hadda shaqada hayo dhalinyarada meel walba jaamacadaha ka baxay oo wax bartay iyo dadka iyagu xoogsatada ah oo iyagu wax aqoon laakiin xoogooda iyo xirfadooda ku xoogsanaya ay shaqo ka helaan cid walbana wax gaaraan ilaa ay noqoto meel sida wadamada hadda oolka soo saara oo dekado iyo meel laga dhoofiyo ay yeelato Puntland insha allahu tacaala mustaqbalka dhow. The President made reference to the comment from Africa Oil CEO Keith Hill, who stated that this project will take time, it will not come overnight, it will require patience from everyone and all parties involved. That being said, if and when this project succeeds, who will gain job opportunities to work, employment opportunities being the case, and more investments will come, given that today is the big drilling day, and more investment and more companies and more will be attracted to invest here in Puntland given the conditions and the success of the project. aad iyo aad baan maqsuud uga ahay maanta inaan xafladan maanta halkan la isugu yimi markii sharafkan qiimaha leh iyo madaxda shirkadaha aflawga oo dhul badan ka yimi dhul fog ka yimi halkan maanta aynu u noqono marag inuu ka bilaabmay Puntland ceelkii ugu horreeyey oo riigu maanta ku dhufanayo qodadiisii aad iyo aad baan maqsuud uga ahay waxaan kaloo ku celinayaa waxa weeye gacma bibiya shacabada alla laga dargaan baahidahan qabno khayraadka dabiiciga dhulkeena ku jira oo ka reebi kara oolada waa waqtiga meesha iska tasaarto dawladda mikro yaalin abaarona waa iska bateen dhibaato kalena waa iska jirjiraan marka khayraadka dabiiciga ah oo dhulka guusha ku jira haddii loo soo baxo waxaa loo faqriga inaan tuuri doono sabir ha la yeesho labadana ha laga wada shaqeeyo ilaahayna inuu ku guuleeyo waxaana ilaahay uga baryayaa inuu xeel khayr qaba ka dhigo inuu innagoo dhan qabuurteena soo dhigo inuu khilaafka dadkoo dhan ka saaro innagana Soomaali haddaynu nahay dhammaanteenba gaar ahaan reer Puntland qabaa'ilka meelahaas isku laalaynaya tuuladaha isku laalaynaya iyo ceelasha iyo waxaasna waa laga bixi doonaa wadankooda ceel buu noqon doonaaye sabir ha la yeesho sida ninka odhanaya dhinaca gibixaaga fadhiya uu yidhi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.